xabsigii ahaa kawaanka bini'aadanka qof walba wuxuu haystay kaliya rajaa inta noloshiisa ka hartay qol kaliya loogu talagalay 5 qof oo qontameeyo qof lagu xareynayo mishiino shiidaya lafaha bini'aadanka dad jir ahaan nool laakiin maskaxdoodu ku waayay argagaxa gudahaasi ka socday magaalooyin waaweyn oo dhulka hoostiisa ka qodan xabsiga Sydney waa mid ka mid ah xabsiyada ugu halista ee argagaxa badnaa dunida qofkii xabsigaasi lagu xiro rajo kale oo banaanka uu ku soo baxo muusan haysan waxaana xabsigaasi ka socday ciqaab walba qof bini'aadan suureysan karo mid ka weyn wuxuuna qofka caqliga tagayaa sidii loo ciqaabayo qolka aad ku xiran tahay waxaa yaala meedad muuqaalkan waxaan kaga hadli doonaa gudaha xabsiga Sydney qolalka cariiriga ah darbiyadii waaweyn ee qarsoonaa iyo sheekooyinka dadka ka badbaaday dulmiga cabsida joogtada ahayd iyo ciqaabtii adduun waa idin salaam saaxiibayaal magacaygu waa Xaliimada inta gudaha u galin warbixinteena maanta waxaan ka codsanayaa inaad subscribe iyo dhaado channelka laagtan aad ii saarto channelkan waxaad ka helaysaa xogaha sirdoon dambiyada qarsoon ee xogaha caalamka inoo bilaawo bixinteena maanta xabsiga Sydney waxaa sidoo kale loo yaqaan madxafka aadanaha markii hore waxaa lagu hayay saraakiil aan daacad ahayn oo ka soo horjeeday maamulkii markaas talada hayay kadib 2011 waxaa loo adeegsaday dadka mudaharaadayay qol kasta wuxuu ahaa mid yar oo badanaa lagu hayay 10 ilaa 15 qof qolalka waxaa ka jiray cariiri hawo xumo musqul la'aan iyo iftiin yar waxaa la dhisay sanadkii 1986 30 kiiloomitir waqooyi bari ka xiga caasimadda Suuriya xabsigan waxaa si gaar ah u maamulayay ciidanka booliska militariga waxa uuna noqday goob lagu hayo dadka ka soo horjeeda dawladda gaar ahaan siyaasiyiinta mucaaradka suxufiyiinta madaxa bannaan iyo dadka u dooda xuquuqda aadanaha xabsiga Sydney wuxuu caan ku noqday cadaadis naxdin leh iyadoo maxaabiista lagu hayay xaalado aad u daran qolal ciriiri leh gaajo iyo biila'aan jirdil joogto ah iyo ciqaab nafurid ah maxkamada aan cadaalad lahayn oo lagu xukumay 100,000 oo qof waxaa la sheegay in dad badan oo ku jiray xabsigaasi ay ku dhinteen gudaha xabsigaasi halka kuwa badbaadana ay noqdeen kuwa maskax ahaan dhaawaca oo wali la nool xasuusaha argagaxa qaar iska ooynayo qaar xitaa dadkooda aqoonsan waayay ayagoo yaryar meesha lagu xiray oo ka soo baxay xabsiga ayagoo waayeel ah oo maskaxdii ka tagtay xabsigan waxaa loo dhisay qaab military oo adag oo cabsi leh waxaa jiray 2 dhismo oo waaweyn dhismaha cas oo ahaa qaab wareega oo leh qolal badan waxaa badanaa lagu hayn jiray maxaabiista siyaasadeed iyo kuwa ugu khatarta badan sidoo kale waxaa jiray dhismaha cadaanka dhismo yar oo u samaysan qaabka xarafka L waxaana lagu xareyn jiray dadka sameynaya mudaharaadyada waxaa jiray ugu yaraan 2 qol oo loo dhigi jiray qolalka cusbada ee xabsiga Sydney midkoodna la furay bilowgii sanadkii 2013 mid ka mid ah oo ku yaalay dabaqa koowaad ee dhismaha cas wuxuu ahaa qol weyn oo 6 lagu dhuftay 8 mitir ah halka qolka yar uu ahaa 4 lagu dhuftay 5 mitir dad badan ayaana lagu hayay qolalkaas cariiriga iyo xaaladaha xun ayaana ka dhigay nolol adag cabsi iyo dhibaato joogto ah ay ku noolaayeen maxaabiistaasi qolalkaasi waxaa dusha looga daboolay lakab cusba ah nooca caadi ahaan loo isticmaalo jidadka barafka sida looga yareeyo waxaana loo isticmaali jiray in lagu keediyo meedadka dadka dhintay maadaama aysan jirin qolal qaboojiyaal ah oo loogu talagalay meedadka markii maxbuusku uu dhinto xabsiga Sydney jirkiisa waxaa lagu haan jiray gudaha qolka ee la joogaan maxaabiis kale muddo 2 ilaa 5 maalmood ka hor inta aan loo qaadin qolka cusbada intii lagu jiray xukunkii Bashar al-Assad xabsiga Sydney wuxuu caan ku noqday cadaadis jirdil iyo naxdin maxaabiista ayaa lagu hayay xaalado aad u adag oo naf iyo maskaxba dhaawacay qolalka xabsiga ayaa aad u cariiri u ahaa maxaabiistu waxay ku xirnaayeen tiro aad u badan oo hal qol ah 100 qof ayaa lagu qasbay qolal yar iyadoo aysan jirin meel ku filan oo ay fadhi ama ay seexdaan qolalka cariiriga ayaana sababay cudurro caafimaad oo halis ah iyo niyad jab aad u xoogan sidoo kale waxaa jiray gaajo iyo biila'aan maxaabiista waxa aan la siinaynin cunto ku filan mararka qaar waxaa la kulmi jireen maalmo badan oo ay wax cunin biila'aanta ayaana ahayd mid joogto ah taasoo keentay daal daran dhibaatooyinka caafimaad iyo dhimasho sidoo kale waxaa jiray jirdil iyo ciqaab nafurid ah maxaabiista waxay la kulmi jireen jirdil joogto ah iyo ciqaab nafurid ah ciidamada xabsiga waxay adeegsan jireen hab jirdil halis badan oo ay ku jiraan garaacis koron dadka qaar ayaa lagu qasbay inay daawadaan
ama ay ka qayb qaataan falalka naxdinta leh si loogu cabsi geliyo dadka kale. maxaabiista waxaa lagu xukumay maxkamado aan cadaalad lahayn, halkaas oo aan la siin fursad ay isku difaacaan. go'aamada xukunka waxaa inta badan saameyn ku lahaan jiray siyaasadda, iyadoo dadka lagu xiray sababo aan sharci waafaqsanayn. dhimashada iyo dhaawac boqolaal qof oo maxaabiista ayaa la sheegay inay ku dhinteen gudaha xabsiga sababo la xiriira jirdil, gaajo, cudur iyo xaalado caafimaad oo liita. kuwa badbaada waxay ahaayeen kuwa maskax ahaan iyo jir ahaanba dhaawac weyn leh, waxaana noloshooda kusii jiray xasuusta argagaxa leh ee naxdinta badnaa. markii Bashaar al-Asad meesha ka baxay, xaaladda xabsiga Sidnaaya ayaa si lama filaan ah iskugu bedeshay. qolalkii ciriiriga ah ayaa haawanayay, waxaana bilaabmay siideynta dadka ku xirnaa muddada dheer. maxaabiista siyaasadda iyo suxufiyiinta madaxa bannaan iyo dadka u dooda xuquuqda aadanaha ayaa laga qaaday derbiyada adag, ayagoona ugu dambeyntii helay xorriyadooda. laakiin xaaladda ma ahayn mid fudud. dadkii ka badbaaday waxay ahaayeen kuwo jirkooda daciif yahay, qaar waayeel noqday iyo inay caadi ahaanba u socon. dadka qaar ayaana caqligooda ku waayay, maskaxdooda iyo dhaqankooda waxaa ka muuqday dhibaatada ay soo mareen. qaarna aan awoodin inay hadlaan, qaar iska oonaya, qaar ayaaba hadalkii laga waayay. xitaa waxaa la arkayay qaar iska qoslaya. qolalka ciriiriga ahaa, derbiyada waaweynaa iyo xitaa qolalka cusbada ee loogu talagalay meydadka waxay ahaayeen xasuus joogto ah oo ka dhexaysay maxaabiista iyo kuwa kasoo baxay xabsiga. xitaa markii ay banaanka yimaadeen, qaar ayaa weli la halgamaya xasuusta naxdinta leh iyo cabsida joogtada ahayd ee kala kulmeen gudaha ee xabsiga Sidnaaya. sheekooyinka kasoo baxay xabsiga waxay noqdeen kuwa caalami ah oo muujinaya dulmiga joogtada ahayd iyo wixii ka dhacay gudaha Sidnaaya. xabsiga Sidnaaya wuxuu noqday mid qarsoodi ah oo adag in la helo. maxaabiista qaar ayaa ku dhintay gudaha xabsiga, iyadoona ehladooda ay raadinayaan cadeymo muujinaya xaaladooda. waxaa socday dadaalo caalami ah oo lagu baarayo xasuuqii iyo jirdilkii ka dhacay gudaha xabsiga. sawirada iyo muuqaalada xabsiga waxay muujinayaan jirdilka, gaajada iyo xaaladaha caafimaad darrada ee maxaabiistaasi. sheekooyinka maxaabiista kasoo badbaaday xabsiga Sidnaaya waa kuwa aad u naxdin leh, waxaana ka mid ahaa Rakiid Axmed. wuxuu ahaa sarkaal hore oo ka tirsanaa ciidanka cirka ee Suuriya, waxaana loo aqoonsaday inuu yahay maxbuus siyaasadeed oo ugu muddada dheeraa dalkaasi. 25 Diseembar 1954 ayuu dhashay, wuxuuna ka qalin jebiyey akademiyadda ciidamada cirka ee Suuriya sanadkii 1955. kadib wuxuu u shaqeeyay dhowr qaybood oo ka tirsan ciidamada cirka ee Suuriya. maamulkii markaasi talada hayay ayaa ku amray Rakiid inuu duqeeyo magaalo ka tirsan dalkaasi. Rakiid markaas wuxuu ahaa sarkaal duuliye, wuxuu si cad u diiday inuu fuliyo amarkaasi, wuxuuna ku dooday in duqeyntaasi ay ahayd xadgudub ka dhan ah xuquuqda aadanaha iyo mas'uuliyad darrada dowladnimada. go-aankaasi geesinimada leh wuxuu keenay in la xiro, waxaana lagu cadeeyay inuu ka qayb qaatay isbahaysi shisheeye, inkastoo eedahaasi aysan jirin. ninkani wuxuu ku jiray xabsiyo kala duwan oo ku yaala Suuriya muddo 43 sano ah. wuxuu la kulmay xaalado adag sida jirdil, gaajo, tacadiye kale. 8 Diseembar 2024 markii talada gacanta u gashay xoogga mucaaradka, ninkani waxaa laga sii daayay xabsiga isagoona 70 jir ah. siideyntiisa waxay noqotay astaan u taagan halganka xuquuqda aadanaha iyo geesinimada, wuxuuna noqday mid ka mid ah dadka ugu caansan ee kasoo baxay xabsiyada Suuriya, isagoona u taagan geesinimada iyo adkeysiga. sanadkii 2025 ninkani waxaa lagu abaalmariyay abaalmarinta caalamiga ee wanaagga, taasoo loogu aqoonsaday geesinimadiisa iyo u doodinta xuquuqda aadanaha. siideyntiisa wuxuu ka qayb qaatay wareysiyo iyo dood cilmiyeed, isagoona ka hadlay xaaladaha xabsiga, geesinimadiisa iyo rajadiisa mustaqbalka Suuriya. wuxuuna sheegay in xorriyadiisa dhabta ay tahay in dadka Suuriya ay helaan cadaalad iyo xorriyad buuxda. waxaa sidoo kale sheekooyinka la baahiyay waxaa ka mid ah Muniir Mulki, maxbuus 23 jir ah oo la xiray markii uu xabsiga Sidnaaya lagu xiray sanadkii 2012. markii uu gudaha u galay xabsiga, Muniir wuxuu sheegay in maxaabiista cusub lagu soo dhaweeyay jirdil daran. ciidamada xabsiga waxay adeegsanayeen qalab cusub sida biraha gaaska iyo biraha kale ee aad u waaweyn. tani waxay ahayd hab cabsigelin joogto ah ee dadka cusub lagu wacyigelinayo inaysan isku dayin inay ka hortagaan ama ay ka hadlaan xaaladda gudaha.
Muniir wuxuu ku jiray qol ciriiri leh ay ku jiraan boqolaal qof. Cuntada iyo biyaha waa la xadiday, taasoo keentay gaajo, biyo la'aan iyo cudurro caafimaad oo halis ah. Dadka ayaana u noolaa xaalado caafimaad darro iyo cudurro joogto ah. Muniir wuxuu sheegay in xabsiga Sidnaayo uu noqday goob lagu dilo dadka aan waxba galabsan. Dadka qaar ayaana u dhintay ciqaab xad dhaaf ah iyadoona la marin maxkamad sharci ah. Qaar ka mid ah maxaabiista waxay arkeen dilal toos ah oo aan la xakameyn, taasoo keentay cabsi iyo niyad-jab aad u weyn. Kadib markii uu ka badbaaday, Muniir wuxuu noqday qof maskax ahaan dhaawaca, weli la nool xasuusaha xanuunka iyo cabsida joogtada, wuxuuna noqday il muhiim ah oo sheekadiisa uga sheekeeya adduunka si loo muujiyo xaaladaha xabsiga Sidnaayo. Kadib dagaalkii sokeeye ee Suuriya, xabsiga Sidnaayo wuxuu noqday mid qarsoodi ah oo adag in la helo. Maxaabiista qaar ayaana ku dhintay gudaha xabsiga iyadoona ehladooda ay raadinayaan cadeymo muujinaya xaaladooda. Waxaa socday dadaalo caalami ah oo lagu baaraya xasuuqii iyo jirdilkii ka dhacay gudaha xabsiga. Bishii Diseembar 2024 ciidamada mucaaradka ayaana qabsaday, taasoo keentay in dowladii Bashaar al-Asad ay ku guuldareysato inay sii hayso awoodda. Intii uu socday weerarkaasi, xabsiga Sidnaayo waxaa laga furay boqolaal maxaabiis ah oo ku jiray xabsigaasi muddo dheer. Tirada maxaabiista la sii daayay waxaa la sheegay in boqolaal maxaabiis ah oo ku jiray xabsiga Sidnaayo ay ka soo baxeen kadib markii mucaaradku qabsadeen xabsiga. Si kastaba ha ahaatee, tirada saxda ah ee maxaabiista la sii daayay ayaa weli aan si rasmi ah loo xaqiijin. Inkastoo qaar ka mid ah maxaabiista ay ka soo baxeen xabsiga Sidnaayo, haddana waxaa jiray qoysas badan oo weli raadinaya xubnahooda ka maqan. Waxaana la sheegay in qaar ka mid ah maxaabiista aan la helin, iyadoona qoysaskooda ay weli ku jiraan xaalado murugo iyo walbahaar. Howlgallada badbaadinta hay-adaha ayaana sameynaya howlgallo badbaadin ah si loo helo maxaabiista ku maqan xabsiga Sidnaayo. Si kastaba ha ahaatee, howlgalladaas ayaana la sheegay inaysan soo saarin natiijooyin la taaban karo, iyadoona qaar ka mid ah maxaabiista aanan weli la helin. Marka la soo koobo, waxaa jira dad badan oo ka soo baxay xabsiga Sidnaayo kadib markii dowladii Bashaar al-Asad la riday. Si kastaba ha ahaatee, tirada saxda ah ee maxaabiista la sii daayay iyo xaaladaha ay ku sugan yihiin ayaa weli ah kuwa aan si rasmi ah loo xaqiijin. Sawirada iyo muuqaalada xabsiga waxay muujinayaan jirdilka, gaajada iyo xaaladaha caafimaad darro ee maxaabiista,